kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo si degdeg ah uga jawaabay cabashadii ka timid dadka reer Boqol iyo amar ku aadan xal u helidda deegaanadaas oo uu bixiyay haddaba ma laga yaabaa in ciidamada haramcad iyo kumaandoosta gorgor loo diro Boqol warbixino iyo xogo ayaan idinkaga haynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo iclaamisay shirweyne ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada haddaba maxaa looga hadlayaa shirkaasi suuragal ma tahay inay ka soo qayb galaan Dani iyo Axmed Madoobe oo dowladda ku kacsan wararkii ugu dambeeyay ee jawiga Muqdisho oo maanta ka duwan sidii hore iyo siyaasiyiinta oo wali kala taagan mowqifkoodii adka wararkeena kalena waxaa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo luuqad aan horey looga baran ku eedeysay maamulada Puntland iyo Jubaland dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka Hirshabelle oo ay ka dhaxtafatay iyo warar ka soo baxaya ciidamada liyu police oo dadka afduubta gobolka Hiiraan iyo Kenya oo cibowday kadib markii mas'uul Soomaali ah oo dowladda Kenya ka tirsan uu fashiliyay sir laga qarinayay shacabka dalkaasi qodobadaas aan ku faafayn doona barnaamijkeena insha Allah waa galabsada 16 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku maasantiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararkan oo gaarsiin saaxiibadiina adinkoo ku sheergalinaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena sidii aad la socoteen maalmihii la soo dhaafay waxa ay warbaahinta gudaha tabinaysay dadka ku nool gobolka Boqol gaar ahaan degmada Xudur oo qayladhaan ka muujinaya go'doomin ay sheegeen in ay ku hayaan xarakada Al-Shabaab dadka deegaanka oo isugu soo baxay wadooyinka magaaladaasi ayaa sameeyay banaanbax weyn waxaana ay baaq u soo direen dowladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo marxalad doorasho oo aad u adag uu dalku ku jiro dhammaan madaxda Soomaalida heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashooyinka dalka waxa adag in fursad loo helo sidii si buuxda wax looga qaban lahaa dadka reer Boqol dhibaatada ay ka cabanayaan oo muddo 8 sano ah ku dhow ay go'daamin ku hayaan xarakada Al-Shabaab haddaba warqad TV ayaa ogaaday in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aansadeen inay wax ka qabtaan tabashada ka soo yeertay dadka reer Boqol gaar ahaan kuwa ku nool degmada Xudur ee caasimadda gobolkaasi ilo ka tirsan villa Soomaaliya ayaa waxa xaqiijiyay warqad TV in madaxweyne Farmaajo uu la xiriiray madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed lafta gareen isla markaana uu madaxweyne Farmaajo amray in uu si dhaqsi ah u tago degmada Xudur dowladana uu markaasi jawaab ku soo celiyo si wax looga qabto dhibaatada ay dadka shacabka ka cabanayaan ilaha aan xogtan ka helnay waxa kale oo ay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha uu ballan qaaday in ciidamo iyo sanad military loo diro gobolka Boqol si cadawga looga dulqaado ummadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhiban madaxweynaha waa ay soo gaartay fariinta dadka reer Boqol waxa uuna si degdeg ah ula xiriiray madaxweyne lafta gareen waxaana uu ku amray in uu booqdo Xudur kana soo warbixiyo sida ay wax uga jiraan halkaas waxa kale oo madaxweynuhu ka dalbaday lafta gareen inuu keeno xog dhameystiran oo saamixi karta in dowladdu ay ciidamo u dirto halkaas ama ciidamo haddii la heli karo saanad ay dowladdu ku taageerto sidaasi waxa warqad TV u sheegay mid kamid ah saraakiisha ka shaqeeya madaxtooyada qaranka madaxweynuhu kama labaynayo in uu ciidamada kumaandoosta gorgor ee ay Turkigu tababareen iyo kuwa gaarka ah ee booliiska ee haramcad oo Turkigu isna uu tababaray oo u diro Boqol laakiin waxa uu rabaa xog sugan oo ciidamada iyo dowladaba ka caawin karta inta ay la eg tahay taageerada ay rabaan dadka reer Boqol si ay cadawga isaga dulqaadaan ayuu ku sii daray sargaalkana la hadlay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo ka jawaabay amarka madaxweynaha dalka ayaana maanta tagay Xudur oo xarun ah Boqol isagoo oo warbixin rasmi ah ku soo celin doona dowladda dhexe Soomaaliya Al-Shabaab ayaa dhammaan jiray wadooyinka soo gala degmada Xudur ee xarunta u ah gobolkaasi iyagoo oo joojiyay gaadiidkii raashinka iyo waxyaabaha kale ee qutul daruuriga u waday magaaladaasi halka wado ee magaaladaas waxa ay uga iman karaan waa hawada waxaana maalintii tagta diyaarad ama dhowrkii maalinba mar ay diyaarad tagtaa siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Boqol ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe in hub iyo ciidan fara badan ay geynayso gobollo xasiloon ay ugu horeeyaan Gedo iyo Hiiraan halka Boqol oo u baahan in saanad ciidan iyo military la geeyo aysan dowladdu indhaheeda u soo jeedin
barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ayaad kala socotaan channelka Warqaa TV markana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay iclaamisay shirweyne ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladda goboleedyada shirkan ayaa sida ay ila xogagaal ah u sheegeen Warqaa TV waxa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka waxaana la sheegay in shirkan ay gadaal ka riixayso qaramada midoobay ee beesha caalamka ila ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxa ay noo sheegeen in shirkan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku cadaadinayso qabashadeeda beesha caalamka waxaana la rajeynayaa in ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isugu imaadaan magaalada Muqdisho iyo kuwa dowlad goboleedyada laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay Dan iyo Axmed Madoobe ma ka soo qayb gali doonaan qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa ballan qaaday in ay imaan doonaan labadaasi mas'uul waxay wararku sheegayaan in shirkan sidoo kale qaybihiisa dambe laga qayb galin doono musharaxiinta mucaaradka ee shirarka ka wada magaalada Muqdisho lama oga shirkan in uu qabsoomi doono iyo inuu fashilmi doono dhinaca kalena jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta uu sabtiya ka duwan maalmihii hore waxaana uu u muuqdaa jawiga magaalada siyaasad ahaan mid degan oo xasiloon xagga amniga aad buu u xasilan yahay laakiin wali waxa jira in siyaasiyiinta Muqdisho ku sugan ee kala aragtida duwan ay wali mowqifyadoodii adag kala taagan yihiin ma jirin maanta wax shirar ah oo magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay yeesheen mucaaradka amaba dowladda dhexe nolosha ayaa si caadi ah ku socota dadka reer Muqdisho ayaana aad isaga digaya in dadku ay ku lug yeeshaan siyaasadda isdiidan ee dhinacyada isku hayaan isla markaana bulshadu ay dhax ka noqoto waxa taagan hadii loo baahdana ay bulshadu kala qabato cidii gardaran oo markaasi xaalka amniga iyo nolosha guud fidqalala ku sameyn karta wixii warar ku soo kordha xaaladda guud ee doorashooyinka dalka waan idin soo gudbin doonaa isla arrimaha dowladda iyo maamul goboleedyada hadii aanu fiirino wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo la hadlay VOA-da ayaa ka hadlay khilaafka doorashooyinka ka taagan Mr. Cabdirasaaq Maxamuud waa Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud wasiirka arrimaha dibadda oo ka soo jeeda Puntland ayaa meesha ka saaray in xukuumadda waqtiga ka sii dhamaanayo ay qabanayso doorasho hal dhinaca isagoo sheegay in labadan maamul ay fulin waayeen heshiiskii 17 September waa Puntland iyo Jubaland waxa nasiib darro ah buu yiri in dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland aysan ka soo bixin heshiiskaas ay iyagu qorteen ayuu u sheegay VOA-da sidaas marka ay noqoto waxa loo baahan yahay in la sheego cidda qaadanaysa mas'uuliyadda diblomaasiyiinta beesha caalamka ayaa ku howlan in ay xaliyaan arrimaha doorashooyinka ee Soomaalida dhexdeedu ay isku haystaan dowladda iyo maamul goboleedyada ayaana waxa ay isku jeedinayaan midba midka kale dhaliilo iyo dacaayado ku aadan in qolo kasta iyadu xaggeeda qaladku ka jiro qaybihii dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay daawad hadii ku taa markii kugu horeysay channelka soo boqoto waxaan si xushmad iyo qadarin ku dheehantahay kaaga codsanayna inaad channelkeena subscribe tiraahdo sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya markana gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay ciidamada Liyu Police ee maamulka Soomaalida Itoobiya inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka gobolkaasi Cali Jeeyte ayaa shaaca ka qaaday in saacadihii la soo dhaafay ciidamada Liyu Police ay dad shacab ah iyo ciidan ka kaxaysteen deegaanka Xudeey iyo Wagalle oo gobolka Hiiraan ka tirsan sidoo kale waxa uu intaas ku daray in aysan u dulqaadan doonin xadgudubyada uu sheegay in ay gobolka ka wadaan ciidamada Liyu Police wali ma jiro waxa la ka soo baxay saraakiisha Liyu Police iyo ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya oo uu aadan u jeediyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle inta badan waxa xadka Hiiraan uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka dhaca dagaalo u dhaxeeya Liyu Police iyo dadka ku dhaqan deegaanadaas ee Soomaalida ah isla markaana ka soo horjeeda in lagu soo gardaroodo dhulkooda iyo deegaankooda ugu dambeyntiina hadii aynu fiirino gudoomiyaha Mandheera Cali Ibrahim Rooba ayaa dowladda Kenya u gudbiyay cabasho dhanka amniga ah oo la xiriira weerarada al-shabaab ay ka geystaan dhulka Soomaalida Kenya ay maamusho iyo cabsida ka dhalatay isu socodka wadooyinka Roobo ayaa sheegay in al-shabaab ay maamulaan wadooyinka bariga Kenya 50% kadib weeraro iyo dilal ay muddo ka geysanayeen sida uu sheegay waxaana uu dalbaday in qorshe ka dhana al-shabaab looga baahan yahay dowladda Ali Roobo waxa uu xusay in al-shabaab ay kordhisay dhaqdhaqaaqa ay ka wado ismaamulada Mandheera ay kamid tahay taasina wuxuu yiri ay dhalisay walwal la xiriira
in maamulka intiisa badan uu maro dhankooda sida uu sheegay gudoomiyaha ee magaaladaasi. xaqiiqda runta ah iyo tan dhabta ah ayaa ah in aniga oo ah gudoomiyaha ismaamulka Mandheera oo aan ahay qof shacab ah isla markaana la ii igmaday in aan maamulo dowladaha deegaanka ayaa xaqiijinaya in ka badan 50% wadooyinka deegaankaas ay maamusho Al-Shabaab. sidaasi waxaa yiri Ali Ibrahim Roba, saraakiil ka tirsan Kenya, ayaa sheegay in dowladdu ay u diyaarisay ciidamo boolis ah oo dhulka u dhaxeeya magaalooyinka ka shaqeeya, inkastoo aysan shaacin waqtiga la geenayo ciidamadaas iyo tiradooda iyo qalabka ay wataan. Al-Shabaab ayaa la jibaaray weerarada iyo falalka ay ka fulinayaan gobolka waqooyi bari wadanka Kenya oo ay Soomaalidu degto, waxaana ay ciqaab daran u geysteen ciidamada Kenya iyo kuwa wadankaasi Kenya ku sugan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya tan iyo kulantada dambe. akhyaartaan u jecelnahay waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo kulanto dambe oo xiiso leh.